magacaygu waa Dhuux Axmed Cabdi Khayre oo joogta deegaanka Ceelkhawaan ka mid ah dadkii waxaan ahay ka faa'iideystay lacagtii bishii waxa la siinayay $80 baa la siinayay waxyaalo aan haysan ayaa ii kaftay oo ku soo adeegtay bukaankan daawo ugu qatay SSWC Oxfam antaasiba ay igu caawiyeen noloshayda kor bay soo qaaday Aamina Maxamed Cali baa la dhahaa Ceelkhawaan baa deganahay caqabadana saameysay waxay ahayd biyo ma haysan haddana ceel baa noola habeeyay haweenkii caruurta biyaha waa feel biyaha loo gali jiray marka sidaas daraadeed haddii biyihii tubadii noola soo dhaweeyay waan dhaansanaa shirkamadeena ku dhaansanaa nadaafad fiicanna waa ku helnay anigu waxaan magacaygu waa Farxaan Axmed Xuseen kamid ah dadka degan deegaanka Ceelkhawaan oo Ceelkhawaan kamid ah dadka degan kana mid ah dadka ka faa'iideystay mashruuca ay bixisay SSWC iyo Oxfam oo noloshooda iyo waxtarkooda aad ay u soo qaadaba kamid ahay caqabadaha ugu weyn ee abaarta ay sababtay waxa kamid ah noloshii qoyska inay ku xirnaatay deyn la soo qaato haddana deymihii baxeen ay aad isku bedesho noloshii waxaan mahadcelin iyo u dirhayaa iyo bogaadin hay'adda SSWC iyo Oxfam deeqdii aad soo dhibtay wayna soo gaadhay magacaygu waa Muxidiin Cabdikariin Yuusuf waxaan joogaa deegaanka Docol baan xogo noolahay hay'adda SSWC iyo Oxfam ayaa waxay nooga caawisay deeq bixin lacago 3 bilood ah lacagtaasina si weyn ayay dadka iyo deegaankaba u anfacday caqabadaha ugu weyn oo jira waxay ahaayeen abaar baahsan anta aad bay u mahadsan yihiin hay'adaha SSDE Oxfam boqolkiiba waa u mahadcelinaynaa farsamada deeqeed oo magaalada ay soo gaarsiiyeen haday biyo tahay iyo haday lacag tahay iyo haday solar tahay intaba waa waxa in badan aan u baahnayn maantana si toos ugu baahay beelnay haan 10 sano biyo aan celi jirin nolol dayac tiray solar tayadiisu ay 360 tahayna waa naloo keenay waa 40 xabba ah waxna loo qabtay wixii ugu xoog badnaa intii 5 sano way arintaan